aad baan idin salaamay dhammaantiin waqti kasta saacad kasta ku tahay fiidiyoon ugu talagalay asxaabta igu xidhan ee reer Yurub saan la wada socono qaaradda Yurub iyo waddanka Ruushka runtii khilaafyo aad u adag baa ka dhex taagan oo ku saabsan arrimaha gaaska. haddaba qabowga soo socdaaba waxaa jiri doona bilo uusan jiri doonin wax koronto ah ama layr kolba saa u taqaano. sidaa darteed qof kasta oo Yurub jooga waxaa lagula talinayaa inuu bahalkan yar ee la yiraahdo power bank ee dabka kaydiya uu yaalo. haddaba bahalkan muxuu taraa? bahalkan yar runtii laba nooc ayaa loo adeegsadaa. qaar waxaa jira labada nooc lahayn laakiin kan lagula talinayo dadku inay isticmaalaan waa noocani power bank, yacni korontona wuu ku kaydinayaa oo taleefanadada ayaad ku charge garaysan kartaa. sidoo kalena wuxuu leeyahay light ama light kolba saa u taqaana ama nal ama light. haddii ay koronto tagto adiguna uu power bankaas ku yaalo taleefankaaga waad isticmaali kartaa, aduu dabka dhaco waad adeegsan kartaa. sidoo kalena waxaad u adeegsan kartaa light ama lish ama touch oo kale. runtii sidanu wada ogsoonahay in arrimaha gaaska ee ka dhaxeeya Yurub iyo Ruushku runtii xaalad aad iyo meel aad u xun ay marayaan. sidaa darteed qof kasta oo Yurub ku nool, waddan kasta oo Yurub aad ku nooshahay Soomaaliya, waa muhiim bahalkaasi inuu guriga ku yaalo. bahalkaas kow cunto kugu filan haddii 2 isbuuc oo kale uu go'doon dhaco. sidoo kale mushamac guriga in saddexdaas ku yaalaan runtii waa qasab. bahalkan wuxuu ka saacidaysan ku sheegay in khadka taleefanka markaste aad laga heli karo aanu ka go'i karin connectigu markasta oo dabka dhaco lagu buuxsanayo. haddii koronto jiri weydo waxaa laga yaabaa taleefanku inuu shaqeyn waayo, maxaa taleefan charger buu baahay. sidaa darteed ayaa lagula talinayaa qof kasta oo Yurub ku nool oo muwaadin Yurubiyan ama ajnabi wuxuu doonaa noqdee inuu haysto bahalkan power bankiga si uu taleefankiisa ugu charge garayso. sidoo kalena uu isticmaalo sidoo kale as a light ama touch oo kale. waa runtii fariin aad dayarsan kartana ma waa muhiim. sidoo kalena waxaa kaloo lagula talinayaa qofka inay gurigu markasta uu yaalo biyo kugu filan. fadlan biyaha soo iibsada guriga soo dhigta biyooyinka mooysaxada ah iska soo dhigta dhowr case. haddii korontadu ay tagto waxaa laga yaabaa waxyaalaha kale sida nolol maalmeedka biyaha kulul oo kale in la waayo ama biyaha gebi ahaanba la waayo. runtii ilaa shalay toole dadku waxay isla dhex mareen arrinta ayada ah. waqti aynu kusoo sheegin waan waaye, laakiin maanta on waqti helaya insha Allah rabay inaan la wadaago. fadlan markasta gurigaaga mushamac biyaha bahalka power bank 3 power banki iyo sidoo kale cunto kugu filan. adigu cuntooyinka qeyrisa daqiiqda oo kale gurigaaga inay yaalaan isii runtii aad iyo aad muhiim ku tahay. taasina waxaad ku badbaadi kartaa haddii winterku ama qabowgu dhammaan ay go'aan waxyaalaha ku shaqeeya gaaska. aad baan idin salaamay fiidiyoon qof kasta Yurub jooga gaarsii follow like tan la dhaafina.